السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan asxaabi waa mar kale iyo kanaalkeena fahamtay. Maanta waxaynu qaadanaa habka aynu ku balagaranayno website-yada xunxun kuwaas oo caruurtina daawato. dabcan haddii aad computer haysato oo caruurna kula joogto waxa must ah inaad ka xidho website-yada xunxun ay booqan karaan. si aad website-yada u xidhno waxaynu soo furanaa browser-keena inagoo wax software kale isticmaalin browser-keena ayaan soo furanaa. kadib halka waxaynu ku qornaa block websites kadibna enter ayaynu odhananaa. enter marka aynu nidhaahno wuxuu inoo soo saarayaa barnaamij yar oo aynu extension ku darayno kaas oo aynu ku balogaraynayno website-yada. marka uu sidan oo kale kuu soo baxo waxa aad doorataa kaas uu ku jiro browser-ka isticmaalayso magaciisa uu ku jiro. inagoo Chrome baynu isticmaalnaa kuwan kale ha isku dooran waa in aad doorataa block site Chrome web store. haddii aad Firefox isticmaalayso waa in halkaa ku noqdo Firefox. haddii aad Chrome isticmaalayso waa in halkaas ku noqdo Chrome. hadaad Safari isticmaalayso waa in halkaas ku noqdo Safari. ay la socotaan block site Chrome web store. kadib kaas ayaan kali ku siinaa. marka aynu kali ku siino waxaan ku dhufanaa add extension. kadibna markuu extension-ka inoogu daro waxaan isticmaalanaa in aynu kadib balogarayno website-yada iyo website-ka aynu doonayno ee aynu diidanahay inuu soo baxo amaba ay daawadaan caruurteena. sorryaan ka noqonin. kadib waxaad ku dhufanaysaa add kadib add extension ayaad odhanaysaa. markaad add extension tiraahdo wuxuu kuu checking garaynayaa wuu kugu darayaa extension-kaaga. kadibna markaas si free ayaad u isticmaalaysaa website-ka doonaysana waad ku balogaraynaysaa. marka inagu waxaan iska sugnaa intuu inoogu daray extension-ka. waqti sidaa u sii badan ma qaato, wax yar buu qaataa. marka checking-kii ayuu wadaa. insha Allah markaa intee waan iska sugay saaxiibayaal. waa kaa wuu wareegayaa asxaabay. markaasuu inoogu darayaa intaa yar boostaan qabanaya khadka yar culus. waa kaa wuu inoogu daray maadaama calaamada doogi soo baxday isaa wuxuu inoogu tarjumay inuu extension-keeni inoogu daray. marka waxa aynu sameynaa waxaynu soo furanaa ishaa yar baynu soo furanaa. saddex yar option-ka ayaynu soo furanaa. kadib markaynu soo furano settings ayaynu ka dooranayna. kadib marka aynu ka doorano waxaan ku dhufanaa halka extensions. ilan extension-ka ayaynu kusoo darsanay barnaamijka. markaa waa kan kadib akayro option ayaan ku dhufanaa. markaynu ku dhufano halkaa waxa inoo suurtageliyay in aynu wax alla waxa aynu doonano halkaa ka balogarayno. wax kastoo aynu doonano halkaas aynu ka balogarayno. halkaa waan iska masaxayaa. waxaan ku qorayaa facebook.com. kadib markaan facebook.com ku qoro add page ayaan odhanaya. waa halkaa inoo soo dhigay facebookii. sidaas ayaan facebookii ku balogarayn. bal haddaba asxaabay bal waxaan ku darayaa oo kale website-kii xumaa mid ka mid ah porno.com. kadib add ayaan odhanaya. wuu inoogu daray waa inuu inaga balogareeyey. bal haddaba waxaan idin tusiyaa asxaabay facebook iyo inuu soo baxay kaas. waa aragtaan asxaabi waa la balogareeyey yuri Facebook. bal kii kalena aynu eegno.
porno.com waa aragtaan asxaabi waa la balogareeyay ayuu yiri website-kan. markaas sidaas ayaa loo balogareeyaa asxaabi. waxaad samaysan idinkuna sidaa ugu tijaabiya sidaa ugu balogareeya. lagama yaabo inuu ka helo barnaamijkaas aynu balogareyno qofka isidhaha ku baad, waayo waynu ka balogareynay. wuxuu yiri the porno.com is blocked by block site. website-kan ayaa balogareeyay waxaan aad baarayso. markaas asxaabi sidaas ayaa laga balogareeyaa. sida looga qaadana aan idin tuso. waxaad ku noqonaysaa habkii hore. setting waxaa soo furaysaa halka yar optionka, kadib settings ayaa tagaysaa, kadib extension ayaa tagaysaa, kadib barnaamijkiiba si toos ah kugu soo baxaya. waxaad sameynaysaa halkii umaad ku noqonaysaa, kadibna kuwii halkan ayuunbaad cancel oranaysaa ka qaadaysaa. saxa cancel ayuu oranaysaa, kadibna okay, kadibna cancel, kadibna okay. bal imika aan halkaa Facebook ku baado. asxaabi si toos ah ayuu Facebook u geliya, waayo waan ka qaaday blogkii. haddaba inuu eegno inta uu soo baxayo. idiguna waxaan rajeynayaa inaad sidaa ugu xidhaan oo ka balogareysaan waxyaabaha xunxun oo kale. dabcan haddii aad damcad xitaa Facebook in aan qofku isticmaalin waqtigu kaga lumayo, sidaas ayaad uga balogareyn kartaa. oo aragtaan Facebook wuu galay imika. markii horena blog buu la soo boodiyey, imikana si toos ah ayuu u galay. kaasuu wareegaya wuxuunba inuu hadhay inuu soo saaro halkii laga geliyo oo keli inuu soo saaro ayuu hadhay. markaas idinkuna sidaa ugaga balogareeya. waa aragtaan asxaabi Facebookaygii ayuu galay. haddaba asxaabi cashirkan intaas ku koobay. waxaan kaga tegayaa inaad channel subscribe iyo like saartaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.